أيها الأحبة aqoontu marka wadannadu waxay leeyihiin wax la yidhaahdo educational policy aqoonta marka la qaybinayo siyaabo badan baa loo qaybiyaa mar academically baa loo qaybiyaa marna waxaa loo qaybiyaa viewga ama educational policyga dowladdu ay leedahay haddaynu aragtiyaha dowladda ku eegno aqoonta saddex qaybood bay u qaybiyaan saddexdaa qaybood waddan waliba qayb wuu qarsadaa cidna uma sheego waa mamnuuc qaybna sankaa la iska geliyaa oo waddan waliba free buu bixiyaa lacag buu ku daraa qaybna waa la kala iibsadaa qaybta koowaad waxay yidhahdaan waa alculuum siyaadiya sovereignty waa aqoonta keenta dunida inaad hogaamiso dowladaha dunida hogaamiya aqoonta ay ku hogaamiyaan aqoontaa la isma siiyo waa wixii ku saabsan culuum ilfadaa cirka iyo waxaan loo dirayo waa wixii ku saabsan nuclearka iyo wixii la halmaala waa wixii ku saabsan culumta hubka iyo wixii la halmaala waa wixii ku saabsan oo dhan aqoonta inuu waddan dunida hadheeyo oo ka xoog bato muruqa dowladnimo waxa soo saara taas laysma siiyo bale waxay yidhaahdaan basaasida dunida ugu badan leh taasay ka dhacda basaasnimada hay-adkan intelligence ay u samaysan yihiin dunida waxa ugu badana ay qabtaan waa inay technology xadaan weliba kuwa isxadaa waxay u badan yihiin kuwa saaxiibada yurub iyo maraykan baa isxadaya inta saaxiibadaaba isxada saa awgeed aqoontaasi iyadu waxa weeyaan aqoon xoog lagu ilaaliyo oo dowlad wal iyo dal waliba uu ilaashado aanu cidna u ogolaanin laa tucta walaa tushtara lamana bixiyo lamana iibiyo waa laga yaabaa productkeeda in lagaa iibiyo laakiin iyada lama iibinayo dayuurad waa lagaa iibin karaa brogaraamada qaar laga nuqsaamiyey oo markasta aad iyaga ku xidhnaanayso u baahanaysid waa dunida sa isticmaalaa dayuurada F-18, F-16, F-35 baa lagaa iibinaya laakiin rasmi maaha brogaraamada rasmiga ay kuma jiraan waxaa la iibinayaa iyadoo maxay iyadoo nusa qolofta iyo duulimaadkii xoogan waa leedahay laakiin waxyaabaha qaarkood lama socdaan culumta qaybta labaad waxay yidhahdaan waa culumta cid waliba ay deeqsiga ku tahay waa culumta waddan waliba uu isku dayayo dunida inta kale inuu gaadhsiiyo waa aqoomaha ku saabsan alhuwiya wadaat identityga iyo dadnimada u ummadda ay leedahay waa diinta waa afka waa dhaqanka waa thaqaafaadka iyo cultureka waa taariikhda ummad waliba deeqsiin bay ku tahay saa daraaddeed safaaradaha dunida haddaad tagto safaarad kasta waxay leedahay xafiis cultureka ku saabsan oo afkooda iyo ammaanta waddankooda iyo dhulka loo maxaa la dhahaa tourismka lagu tagay konton borojiray ku siisanaysaa haddaad safaaradda tagto oo ku saabsan waddanka dhaqankiisa iyo hiddihiisa iyo afkiisa iyo wixiisa ku saabsan waddan waliba inuu kiisu faafaa buu jecel yahay markaa waddan waliba inuu kiisu faafo faransiisku inuu dunidao dhan faransiiska dhigaa buu jecel yahay luqada faransiis inay noqoto ta saytaraysaa ingiriisku in luqada ingiriis saytaraysaa buu jecel waddan waliba afkiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddihiisa iyo taariikhdiisu rabaa dadka kale inuu baro innagu dhibtayna haysataa waxa weeyaan inaynu faafino keena daayo waynu ka faanaynaa af ingiriisigana cilmaynu haysanaa af soomaaligana baadiyaanimo sacaga maaha yani afku waa waxa lagu qoro ee isagu kuma saabsiisana af waliba wuu noqon karaa mid cilmi sida wuxuu kaloo noqon karaa mid jahli sida waa dadkiisu siday ka dhigaan marka qaybtaana dadka cid walba waa la siiyaa qaybta saddexaad ee markay qaybinayaan ay tilmaamaan waxa weeyaan waa qaybta mushtarak bayna albashara bayna waa qaybta dadka ka dhaxaysa
inta badan jaamacaadka laga iibsado inaad lacagtaada ku dhigan karto jaamacaadka dunida ku yaala taa doontaba haddaad imtixaanaadka ay u baahantay inay kasoo gudubto lacagtaadana aad haysato waad dhigan karaysaa waa qaybta ku saabsan handasada caadiga injineerinka طibka dhakhtarnimada dhaqaalaha siyaasadda maamulka qaybahan inta badan la dhigo iyagu labada kooxood kooxna kama tirsana intan la isugu deeqee badanna kama tirsana haddii aan dan laga lahayn intan la qarsadana kama tirsana laakiin waxay ka mid yihiin inta bini aadamku wadaago haddaba dunidu tanaafus bay ku jirtaa loolan bay dunidu ku jirtaa kownkan ama universekan aynu joognaana waa khasaanad sir badan sida khasnadaha waxa furaana waa cilmi ciddii cilmigaasi ka seexata cidlay ku soo dhacda ciddii u dadaashay isku dayda inay furtaana cir iyo dhul iyo bad iyo korkiisa dhulkaba way ka faa'iidaysataa innagu weli waxaynu ugu noolahay sidii ilaahay u abuuray wixii alla ku aasayna waa ku aasan yihin waayo wixii furaahu noqon lahaa baynaan haynin geedaynu ka jarna mooyaane dee geedba kuma kordhino marka innagu sidii rabbi uu inoogu abuuray baynu u joognaa haddaba waxaan leenahay ardayga jaamiciga ah xilka koowaad ee saarani waxa weeyaan waa inuu identityga ummadda ilaaliyo waa xilkiisa koowaad waa inuu identityga ummadda ilaaliyo isaga waa aqoon-yahan xilkiisa labaad waxaynu leenahay saarani markaa wuxuu yahay atasallux bilcilm inuu cilmiga si dhab ah uu qaato si dhaba maxaan uga jeedaa waa inay ardayga ka muuqata aljiddiya walitqaan inuu si dhaba wax u baranayo ma aha inaad sugto shahaadatu zuur intaad ka helayso shahaadada beenta ah waraaq hadhowaad dadku tiraahdo jaamacad baan ka heli waa shahaado beena marka waa markhaati beenaa leh laakiin waxaynu u baahanay inaynu itqaanino inaynu sugno aqoonta sugista aqoontu waxay u baahan tahay dee dadaal badan waxay u baahan tahay inaad wax fahamto waxay u baahan tahay al-istaycaab inaad isku daydo inaad koobi karto waxay u baahan tahay inaad digest inaad hadmiso calaaliso burburisid intaa kadib baad ibdaac iyo ibtikaar samayn kartaa waxa jira markaad koobto ee cuntee calaalisee si fiican u qaadatid kadib baad samayn kartaa maxay wax soo saar iyo ibtikaar iyo invention iyo wax cusub